weeye warwar tolo haddaba waad iga qalin jabiye xaggee loo dhaqaaqaa maxaa kuu qorshaa halkana taagantay imika halkee looga dhaqaaqaa maxaad qabataa yaa shaqo ku siinaya maadaa shaqo abuura inaad adiguna soo celiso abaalkii lagu gashaday sidee loo soo celinaya arrinta warwarkuna waxay leedahay walaaceeda iyo frustrationkeeda iyo marmarka qaarkeed bay in qulub kugu dhaliso halkan looga dhaqaaqi lahaa anigu weligay marka jaamacad ka baxay shaqo maan qoran way shaqada dawladdu ma bixin jirtay qofka hadduu jaamacad ka soo baxo dawladdu ma shaqo gelin jirtay xitaa ma CV da weligay maan qoran oo shaqo codsi maan qoran marka waxaan qabaa 3-4 talo ayaan idin siinayaa waxaan kula talinayaa qof oo ha ku tashan qof kale shaqo ku siiyo bal qof walba waxaad maskaxda gelisaa inaad adigu shaqo abuurato inaad adigu horumar samayso inaad xitaa 2-3 inta isugu tagtaan kaariyoonana meel dhigo horta shaqo la'aan aanay kugu dhicin aad wuxuun qabato haddaad qof kale ku tashato tira shaqaan doonaya uun aad daciif baad niyadda ka noqonaysaa qodobka labaad wuxuu yahay qolqol joogan noqonina jaamacadda burco waad ka soo baxdeen laakiin sadde burco inaad fadhidaan oo shaqo ka doontaan qasab maaha waddanka dhexdiisa koona ilaa koona halkii shaqo laga heli karaba tag weliba waddanka haddaad sii dhaafi karto waddamada jaarkaa tag haddaad sii dhaafi karto meel kale u shaqo doono qolqol joognimadu hoos bay kuu dhigaysaa waxa weeye meel kasta oo ay nolosha kula gasho weliba intaa da'diinu u dhaxayso 20 jir ilaa 30 jir khataro badan qaado oo meelo badan u shaqo tag oo wax kasta isku day ta ugu dambaysa waxay tahay shaqo yari ma jirto shaqo sharaf yari ma jirto ha sugi shaqo xafiis la fadhiisto oo dawladda uun ka sugto uun de qof shaqaysan jiraatay ama wax yar iibi ama macdaarka aabaha xisaabiye yar ka noqo ama hawl kale qaba